أما عالم هو أما مسكين هو أما وحضور هو وأنا وأبنى بني آدمكم markuu muddo moogan yahay waanada waxa ku dhaca ghafla waxa ku dhaca qaswat alqalb qalbi engeg ama doohaniya moogani waxa ku dhaca inuu rabbigii ka fogaado waxa ku dhaca xub dunya dhanka kale inuu u socdo ah adduun jacayl waxa ku dhaca inuu dunuubta uu dhumbado ama se uu galo ولذلك آذنه كمان مر نبا التذكير والوعد قفك بني آدم كاي مرنا كمان مار موانو عضد ومواندو ووحشاق وحلوقاته وحلا دا قفك بني آدم كا مر عقل قيسال لهد الله وشيء دلدي سيا وحسوق يا لغا ورما marka waxay yiraahdaan waa hadal mantiqiya oo aqliga la waramaya marna qalbiga la hadla oo qofka bini aadamka wujdaankiisa iyo damiirkiisa iyo dareenkiisa ihsaaskiisa ayaa rabbi subhanahu wa ta'ala la hadla oo waxa keena cabsida iyo baqaha iyo rajada iyo xubbiga iyo kurhiga iyo wixii la mid ah انت بدن اعمال القلوب وحبضنا كصاب سنه ومن هذا الباب انساكم مركز الهي سبحانه وتعالى قران كمركو ينوت الماميو سيددك الدين تلوغو يريو حتى المام يدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن رب سبحانه وتعالى وحت المام يدتك وير الا دينتي الا كتابك الهي طريقيس وحانا وير دادغو اديكسنيو اسلوب الحكمه اضمانك الله هدليا حكمه اديكسنيو وح عقلك بنادم قنعين كنا هي والموعظه الحسنه بالهي وانا دفي عن وانا في عن واني برب الله سبحانه وتعالى إلهي بادنا وحكت المام يكلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال إلهي المام يا قلبي قد حليستي الرانك هو دحلك كروش ضد سدى دحل وقلبك كفولي وحان الدحلك الصبابي با إلهي لي سبحانه وتعالى وحي كسبني ولذلك علماء وحي هذا من أصول الكتب المنزلة كتبت ألا سودتشي دمانتود وحيابه كل واقع كتبت السماوي وعد باك وضمده وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كمركو كور رميه سببها اللو سودتشي وحكم دبا إلهي لي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وارضضوا با إلهي لي يا أيها الناس يا أيها المؤمنون معه يا أيها الناس بإلهي لي ضدردن آدنه هو النوع قرى تتكبر باوها استا آدنها عقلك قرى إلا الله حظه مايا آدنه الدمانتي إن قلوبتي سلالة حظنا وبهين إن روحي سلالة حظه سادردد بإلهي وحلي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وأنا حق ربي إذن كتب كتابك قرآن ودن إلهي وصف أبو سيئين يهي موعظة وانا انو يهي حق الرب كتم سبحانه وتعالى وشفاء لما في الصدور وحيكو عافي ما دال لابت حلالي وحنون لاب كدعا وحعافي ما ديه وإلهي كتابك سبحانه وتعالى هنون ين حارس قارنا وحوسي هي انت الرميسي بني آدم كوانا كما مارنا صحابتي النبي محمد بهلكا تاغن ولا markaan nabiga la joogana saasaarnay marka waxaad u maleynaysaa inagu markaynu suuqa qabanno ee maanta masaajidka intaynu nabada cidinayna waaninin intaad afar salaadood ku tukato ama saddex intii aad halasho intaad ku tukato aad ka tagto intaad milmaysaa markaa intaad milmaysaa ibn mas'ud xadiiska saxiixayn ku yaala wuxuu tilmaamayaa كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة نبي عليه الصلاة والسلام
maalmaha waa noo miilayn jiray buu leeyahay waanada isagoo nooga cabsi qaba assa'aamata calayna inaanu daallo qofku nashaadkaasi iimaaniga mar walba waxaa laga yaabaa inay naftu daasho idan tanfiisaadka waa la ogolyay inuu soo xoogsado ama baxo ama caynkan laakiin waa laabud inuu qofku yeesho maxay inuu rabbiga ku xidhno waa inuu waane ka maarmin ama caalim ahaw ama miskiin ahaw ama wax aqoon ahaw waana waad u baahantay aakhira adiga laba wax baa lagu weydiinaya mar waxaa lagu weydiinaya naftaada iyo waxaad samaysay marna waxaa lagu weydiinaya dadka ma gaadhsiisay intaa ila mas-uuliyaddaasaa ku saaranay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa aakhir rasuul la soo diro waa aakhir nebi ciddaba soo bixi mayso maca daalik waxaa la yidhi maxay waxaa laguu soo diray raxma lilcaalamiin ama litundira caalamkao dhan inaad u digta baa la yidhi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdi liyakuuna lilcaalamiina nadiira nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam intuu gaadhay in yar bay ahayd waanu dhintay oo caalamka kale ayaa gaadhsiinaya inagu inugu yidhi balliquu canii walow aaya allaahuma fashhad buu dabeetana yidhi inagu inugu yidhi dadka kale gaadhsiiya diinta ilaahu markhaati ka ahu inaan weliba gaadhsiiyo u sheegay buu nebigu